intaasi daawadayaal waa qodobada ugu door koran warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliya u diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo aan idin si ambaqaado insha Allah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalka siyaasadda dalka Soomaaliya isagoo madaxweynuhu sheegay in doorasho xor ah ay ka dhici doonto dalka marka la gaaro sanadda 2016. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in dowladdiisa ay ka go'an tahay in dalka ay doorasho ka dhacdo sanadka 2016 isla markaana la dardargeliyo howlaha la xiriira fulinta barnaamijyada higsiga 2016. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkani ka jeediyay munaasabad afurin ah oo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya uu ugu sameeyay xubnaha xisbiga nabadda iyo horumarka ee BDB oo madaxweynuhu ka tirsan yahay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 6 tiir ee dowladdiisu ay ballan qaaday doorashadii 2012 kadib wax badani ay ka qabsoomeen wax kalena ay dhiman yihiin. waxa dowladdu ay ku tallaabsatay horumar dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, fidinta maamul wanaagga iyo in dalka loo diyaariyo isbedel siyaasadeed oo ka dhaca 2016 kuwaasi oo qayb ka ah barnaamijka higsiga 2016. howlo kale oo badan ayaana inoo harsan maadaama uu dalku ka soo kabanayo colaad sokeeye uuna u baahan yahay dib u dhis ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda. waxa kale oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in baarlamaanku uu dhawaan gudageli doono ka doodista sharciga axsaabta siyaasadda dalka isla markaana dhammaan xisbiyada haatan jira ee BDB ay ka mid tahay ay raaci doonaan nidaamka dastuuriga ah ee diiwaangelinta axsaabta siyaasadda marka sharci ahaan loo meel mariyo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay xubnaha xisbigiisa BDB inay sii laabaan howlihii looga bartay oo ay bulshada ugu adeegayeen sida caawinta dadka danyarta ah iyo hirgelinta mashaariicda horumarka dalka.